Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada asxaabta meel kastoo dunida ka joogtiin. Ma rabtaa inaad luqadda Ingiriiska si wanaagsan uga hadashid muddo gaaban? Luqadda Ingiriiska waa luqad aad muhiim u ah qofkii rabo waqti xaadirkan la joogo in noloshiisa isbedel weyn ku sameeyo. Luqadda Ingiriiska aad ay muhiim ugu tahay. Qof kastana waxaa laga rabaa inuu ku dadaalo barashada luqadda Ingiriiska. Haddii aad rabtid noloshaada inaad isbedel ka samaysid, luqadda Ingiriiska waa furihii aad u isticmaali lahayd. Adduunkani aan ku noolnahay, luqadda Ingiriiska waa luqadda loogu isticmaalka badan yahay. Dhammaan dadka caalamka jooga badankooda waxay yaqaaniin luqadda Ingiriiska, waxaana kuu fududaanaysaa inaad bulshada caalamka la tacaamuli kartid. Maanta waxaa laga yaabaa inaad joogtid waddankaada Soomaaliya. Berit haddii aad dhahdid aniga waxaan rabaa inaan caalamka aado, waxaad u baahan tahay luqaddaani inaad isticmaashid. Maanta fursad ayaad haysataa. Waa inaad juhdi fara badan naftaada aad gelisaa si aad u baran lahayd luqadda Ingiriiska. Haddaba maanta waxaan rabaa inaan halkaani kugu soo gudbiyo wadada ugu fudud aad isku bari kartid luqadda Ingiriiska. Muuqaalkani like saar, YouTube-keeni subscribe noo saar. YouTube-keeni waxaynu ku soo gudbinaa waxyaabaha bulshada anfaca sida qisooyinka, muuqaalada dhiirigelinta ah iyo wixii la halmaala. Haddii aad xiisaysid muuqaaladaas, halkaani subscribe saaro si aad u heshid muuqaalada aan halkan ku soo gudbino. Aan u gudagalno muuqaalkeeni gudaha. Barashada luqadda Ingiriiska sidaan hore u sheegnayba aad ay muhiim u tahay. Qofku waxaa la rabaa inuu go'aan ku gaaro marka koowaad. Haddaba si aad u baratid waxaad u baahan tahay qodobadaani inaad ku dadaashaa. Qodobka koowaad waa inaad go'aansataa inaad baratid luqadda Ingiriiska. Qofka hadduusan lahayn wax go'aan ah, way ku adkaanaysaa barashada luqadda Ingiriiska. Waa inaad leedahay go'aan. Go'aanka wuxuu ka qayb qaadanayaa inaad ka caajisin shaqada aad maalin waliba u taagan tahay oo ah barashada luqadda Ingiriiska. Balse hadday kaa noqoto xiisayn, 2 maalin ayaad dhahaysaa luqaddaani waa inaan bartaa. Maalin kadib waa badaashiba. Taas macnaha waxay ku tusinaysaa markii hore inaadan soo diyaar garoobin. Waa inaad go'aan gaartaa sanadkani 2025 inaad noloshaada isbedel ka samaysaa oo aad barataa luqadda Ingiriiska. Qodobka labaad waa inaad maalin waliba 10 eray aad barataa. Aad ay muhiim u tahay. Haddii maalin waliba aad 10 eray oo Ingiriis kugu cusub aad baratid, bishii waa 30 maalin. 30 maalin maalin waliba oo 10 ah haddii aad ku dhuftid waa dareemi kartaa bishii inta eray aad taqaanid. Aad ay muhiim u tahay qofka inuu naftiisa ku dadaalo barashada luqadda Ingiriiska. Ereyadaasi waxay ka qayb qaadanayaan inaad Ingiriiska wax badan aad ka barataa. Qodobka saddexaad waa inaad samaysaa dhageysi fara badan. Luqadda Ingiriiska waxaa lagu bartaa dhageysi aad u fara badan. Qofka hadduu badiyo dhageysiga luqadda Ingiriiska, waxa uu fududaanaysaa inuu barto dhawaaqa dadka luqadda isticmaala. Dhageysiga wuxuu ka qayb qaadanayaa qofka inuu grammatical ahaan u barto luqadda. Tusaale ahaan ka soo qaad, maanta waxaad ku hadashaa luqadda Soomaaliga. Soomaaliya markii hore iskuulka ama lagugu soo barin, balse waxaad ka dhageysatay hooyadaada iyo waalidiintaada. Ugu dambeyntiina sidaas ayaad ku baratay. Luqadda Ingiriiskana waa sidaa oo kale. Waa inaad dhageysataa. Dhageysi fara badan markaad samaysid waxaad arki doontaa adigoo luqaddii fahmay. Ugu dambeyntiina waana ku hadlaysaa. Waa inaad samaysaa dhageysi fara badan. Dhageysiga aad ayuu muhiim u yahay. Qofku waxaa la rabaa waqtigiisa inta ugu badan waa inuu dhageystaa luqadda Ingiriiska. Waxaa laga yaabaa Soomaali wararka inaad dhageysatid. Waa muhiim inaad xogta waddankaada aad la socotid, balse waxaa kaaga muhiimsan inaad luqad aan luqaddaada ahayn aad ku dhageysatid. Waxay ka qayb qaadanaysaa inaad luqaddaasi aad fahantid. Qodobka kale, samay practice. Luqaddu waxay u baahan tahay in practice lagu sameeyo. Maalin waliba isku day inaad luqadda aad ku hadashaa. Ku hadlida waxay ka qayb qaadanaysaa inaad noqotid qof grammarkiisa saxma. Waa inaad mar waliba aadan ka caajisin. Luqadda waxay u baahan tahay inuusan qofka ka heshoonin markuu ka hadlayo. Dad waxay leeyihiin aniga waxaan ka cabsadaa inaan khalad sameeyo. Khaladkaas ayaa ugu dambeyntii wuxuu noqonayaa mid sax ah. Ha ka heshoonin.
naftaada ku kalsoonaaw, naftaada dhiirigeli, ku hadal. Ugu dambeyntii waxaad arki doontaa adiga oo luqadda Ingiriiska si wanaagsan u yaqaana. Rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa uu dhahay as-sahyu wal mutakabbir laa yata'allam. Qofka xishoodka badan iyo qofka isla weynada ku jirto labadaas qof wax ma bartaan. Waa inaad iska ilaalisaa isla weynada iyo xishoodka. Waa inaad naftaada kalsooni aad gelisaa. Waa inaad qofka hogtaada taagan si fiican aad ula hadashaa. Ugu dambeyntii waxaad noqonaysaa qof professional ah. Haddii aan ku laabto qodobadeennii kore, dhageysiga maanta social media ayaad isticmaashaa, taleefankaada, kombiyuutarkaada, meel waliba ayaad ka dhageysan kartaa. Social media maanta waxaa laga helaa macallimiin ajaanib iyo Soomaali isugu jiraan, maalin waliba u taagan sidii ardayda ugu xaqabtiri lahaayeen barashada luqadda Ingiriiska. Adigana waxaad dhageysanaysaa janaaladaas YouTube-ka laga helo. Website ayaa jira oo free ah oo qofka luqadda Ingiriiska si free ah ugu baran karo. Waxaa ka mid ah Khan Academy. Khan Academy waa website caalami ah. Dad fara badan ayaa wax ka barta. Waa goob free ah. Xisaabaadka, scientifiga, Ingiriiska, cilmiga la xiriira sameynta muuqaalada, video editing-ka, marketing, wax cilmi kasta ayaa meesha ku jira. Waxaa laga rabaa qofka inuu go'aan ku gaaro sidii u baran lahaa cilmigaasi. Waa inaad tababar ku sameysaa naftaada. Waa inaad miisaan saartaa. Haasibu anfusakum qabla an tuhaasibu. Ugu dambeyntii waxaad arki doontaa adiga oo luqadda Ingiriiska si wanaagsan uga hadla. Qodobka kale, dadka kale bar. Waa qodob aad muhiim u ah. Luqadda Ingiriiska marka aad go'aan ku gaartid inaad dadka kale sii bartid, maalin waliba waxaad baranaysaa ereyo kugu cusub. Maalin waliba waxaad baranaysaa jumlad kugu cusub. Maalin waliba waxyaabo cusub ayaad baranaysaa. Marka isku day inaad luqadda dadka kale aad bartid. Waxaad bari kartaa dadka xaafadda kula jooga. Qof waliba ayaad bari kartaa. Ugu dambeyntii waxaad noqonaysaa qof luqaddii xog fara badan ka hayo. Waxaadna noqon doontaa qof luqadda si fasiix ah uga hadli kara. Qodobka kale ee ugu dambeeyay ee aan rabo inaan halkaan ka soo gabagabeeyo waa inaad ku biirtaa guruubyada looga hadlo luqadda Ingiriiska. Waxaa jira guruubyo fara badan dhalinyaro caalamka ku sugan ay ku midoobeen. Guruubyadaasi waxaa looga hadlaa luqadda Ingiriiska. Waa inaad qayb ka noqotaa guruubyadaasi. Waa inaadan xishoonin waqtiga la sameynayo practice ama conversation-ka. Waa inaad xishood iska ilaalisaa. Naftaada waa inaad ku kalsoonaataa. Ugu dambeyntii waxaad noqonaysaa qof noloshiisa meel fog ka gaari karo. Haddaba waxaynu rabnaa waa maxay muhiimadda ay leedahay luqadda Ingiriiska. Muhiimadda ay leedahay luqadda Ingiriiska waxaa kow ka ah luqadda Ingiriiska waa luqad waxbarasho. Qofka hadduu rabo inuu jaamacad ku biiro ama inuu iskuul dhigto, luqadda Ingiriiska waa laf-dhabarta waxyaabihii uu baran lahaa. Qofka hadduu yaqaano luqadda Ingiriiska waxbarashada kuma dhibtoodo. Waa inaad luqadda Ingiriiska muhiimadeeda aad ogaataa. Maanta haddii aad tahay arday uusan waxba baranayn, waxaad ogaan doontaa maalin aan maanta ahayn. Marka koowaad waa inaad u fikirtaa waxbarashadaada. Tusaale ahaan, haddii aad Soomaali ku sugan tahay, jaamacadaha waddankeena haddii aad dhamaysay oo aad ka go'an tahay inaad scholarship ama master degree aad raasatid, waxaa lagaaga baahan yahay inaad ku hadli kartid luqadda Ingiriiska. Sababtoo ah waxaa lagaa qaadi karaa interview. Marka waa inaad diyaar u ahaataa. Qodobka kale aadka muhiimka u ah ee luqadda Ingiriiska. Luqadda Ingiriiska waa luqad international, waa luqad caalami ah. Dhammaan dadyahooga caalamka ku sugan luqaddan Ingiriiska ay isticmaalaan. Adigana waxaa la rabaa inaad dhinacaada aad ka raacdid oo dadka aad la tacaamuli kartid. Luqadda Ingiriiska waa luqadda isku fahmaan qofka Soomaaliga ah iyo qofka Hindiishka ah. Labadaas qofood waxay kala leeyihiin laba luqadood oo kala duwan, balse waxay isku fahmaan luqadda Ingiriiska. Luqadda Ingiriiska waa luqadda looga isticmaalka badan yahay caalamka waqti hadalka la joogo. Social media waad aragtay waa luqadda ugu isticmaalka badan ee waa luqadda Ingiriiska. Sidoo kale waxaad dareemaysaa luqadda Ingiriiska inay aad muhiim ugu tahay nolosha qofka ah. Siiba qofka markuu ku sugan yahay waddankeena Soomaaliya, luqadda Ingiriiska hadduu yaqaano xitaa dhul uma dhaco.
shaqooyin fara badan ayaad heli kartaa. Waxaan rabaa inaan halkan kugu sheego, haddii aad taqaanid luqadda Ingiriiska oo keliya, haddii aad si fiican u taqaanid luqadda Ingiriiska aadna ku sugan tahay waddankeena Soomaaliya, anigu waxaan aaminsanahay waxaad noqonaysaa qof shaqo aad u qurux badan waddankeena ka heli kara. Luqadda Ingiriiska qofka wuxuu noqonayaa qof faa'iidooyin aan halkan laga soo koobi karin halkan ka hela. Midda kale waxaan rabaa, luqadda Ingiriiska waxay fure u tahay shaqadaada. Shaqooyinka la soo bandhigo waad aragteen, waxaa ku qoran qofku waa inuu ku hadli karaa luqadda Ingiriiska. Waxaa ka dareemaysaa meesha muhiimadda ay leedahay luqadda Ingiriiska. Haddaba haddii aan isla fahamnay muhiimadda ay leedahay luqadda Ingiriiska, sideen u baran karnaa luqadda Ingiriiska? Muuqaalkani step by step ila soco. YouTube-keenana subscribe noo saar, muuqaalkana like saar. Walaalayaal, waxaanu rabnaa inaynu nafteena horumarino. Qofka dhalinyarada ah waxaa looga baahan yahay maalinta ka dambeyso inuu naftiisa horumariyo, self education inuu sameeyo. Wax isbarada waxay ka qayb qaadanaysaa qofka inuu bulsho kale u barto, qofka inuu cilmi ka duwan cilmiga dadka kale yaqaan inuu barto. Haddii aad rabtid inaad noloshaada ka duwanaato nolosha dadka kale, waa inaad dadka kale aad ka duwanaataa, waa inaad wax cusub maalin waliba aad barataa, waa inaad waqtigaada ilaalisaa. Waqtigu waa hanti, qofkan waxaa la rabaa inuu hantidiisa ilaaliyo. Waqtigaada ka faa'iidayso. Social media, TikTok, Facebook, waxyaabaha maalayacniga faa'iido aan kuu keenayn waa inaad iska ilaalisaa oo waqtigaada aad ka faa'iidaystaa. Waqtiga aad ayuu muhiim u yahay. Qofka dhalinyarada ah waxaa la rabaa inuu waqtigiisa ka faa'iidaysto. Rasuulka sallallahu alayhi wasallam xadiidkiisa waxaa ka mid ahaa, qofka maalinta qiyaamada markuu tago waxyaabaha la weydiiyey waxaa ka mid ah dhalinyaranimadiisa halkay ku baabacday. Waa inaad jawaabtaas maanta aad raadisaa oo aad naftaada ku kalsoonaataa oo naftaada aad horumarisaa. Wax isbarida waxay aad muhiim ugu tahay qofka. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala quraankiisa meelo fara badan ayuu ku tilmaamay muhiimadda ay leedahay qofka inuu cilmi isbaro. Walladiina uutul cilma darajaat. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay kuwa cilmiga la siiyey darajooyin fara badan ay leeyihiin. Waa dareemi kartaa cilmiga inuusan halkan laga soo koobi karin. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala sidoo kale wuxuu leeyahay ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثير. qofkii cilmi la siiyo waxaa la siiyey shay-aad muhiim u ah. Cilmiga wuxuu yahay xubka ugu awooda badan adduunka la isku adeegsto. Waqti xaadirkan la joogo xubka ugu awooda badan ee la isku adeegsto waa cilmiga. Waa inaad qayb ka noqotaa dadka cilmiga isticmaala. Adduunkani waa laga soo tagay waayadii la isticmaali jiray xooga aad u weyn. Waxaa la joogaa waqtigii cilmiga. Waa inaad cilmiga aad u barataa, waa inaad waqtigaada ka faa'iidaysataa, waa inaad walaalkaada waxa aad naftaada la jeceshahay aad la jecelaataa. Waxaad noqonaysaa qof aad u guuleysan doona biidhnillaahi ta'aala. Walaalayaal, muuqaalkani waqti fara badan ayaa iga galay. Muuqaalkani like saara si meel fog u gaaro. YouTube-kana subscribe noo saara. aad iyo aad u mahadsantihiin. Antaan muuqaaliga aan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'aala wabarakaatuh.